hanaanka dowladnimo iyo hanka dadka Soomaaliyeed waxay maanta halis ugu jiraan inay ka hoobtaan haadaan dheer oo hadda qarkeeda ay ka lalmanayaan waxaana in heerkan la soo gaaro sabab u ahaa ilduuf iyo arrinseeg marar badan ku yimid fursadihii ay dalka iyo dadkuba ay u heleen doorasho hoggaan lagu haleyn karo horgelidda geedi socodka dowladeed ee Soomaaliya si kastoo ay rajada shacabka Soomaaliyeed ugu dhexnoqostay duruufaha amni darri abaaro ka dhagaadayga dhismaha hay'adaha dawliga ah iyo isqabqabsiga siyaasadeed ee isbaarada u dhigtay gaarista hiigsiyada heer qaran ee lagu hanweynaa haddana mar la arkaa oo nafta loo yaabaa waxaa yididiilada dadkeena neef hor leh ku afuufa fursadaha doorashooyinka qaranka oo ah marka ay xildhibaanada oo wakiilada shacabka ahi ay la gudboon tahay inay si kafiirsi iyo feejignaan leh ay ku xushaan hogaamiye ku habboon hadba marxaladda la marayo ee uu dalku horseedka quman ugu hamuun qabo haddaba sanadkan oo Soomaaliya iyo dunida kaleba ay isku raaceen in dalka uu soo gaaray isgoodka khatar badan ayaa waxaa isha lagu wadayaa doorashada madaxtinimo ee dhawaan dhici doonta taasi oo ay isu soo taageen musharaxiin tiro badan waxaana halbeega kala saaridooda uu ku salaysnaan doonaa tayadooda hogaamineed oo tixraac taariikheed wadata si looga fogaado marinseeg mar kale ku yimaada mas'uuliyadda ummadeed ee muhiimadda weyn u leh samata bixinta dalka iyadoo la tixgelinayo sumadda iyo sifooyinka aan sadarada kore ku xusnay ayaa waxaa musharax Jibriil Ibraahim Cabdulle noqonaya midkii ugu mudnaa ee mudnaanta leh oo maanta u tartamaya hanashada xilka ugu sarreeya ee dalka waxaana taasi ka marag furaya sooyaalkiisa taariikheed qof waliba wuxuu dadkiisa u taro ayaa tilmaan looga dhigaa musharax Jibriil Ibraahim Cabdulle lahjooga bulshada iyo dhiirigelinta nabadda oo muddo 30 sano ku dhow uu ku howlanaa ayaa waxa ay uu ku mutaystay inuu noqdo asaan nabadeed iyo iftiin nololeed koorbuubkii dowladda dhexe ee Soomaaliya ayuu Jibriil Ibraahim oo ah nin aad u daayar tagay qurbaha gaar ahaan dalka Canada halkaas oo wax ku baranayay waana meeshaas halka sida mugga iyo macnaha leh ay uga soo muuqatay tayadiisa hogaamineed ilaa heer loo magacaabo ka mid noqoshada hoggaanka sare ee qaar ka mid ah hay'adaha dawliga ee ka jira waddankaasi sida Ontario Trillium Foundation waxa uu howlo la xiriira nabadeynta dib u heshiisiinta fududeynta iyo isdhexgalka dadka kala dhalashada ah iyo koortaga colaadaha dhalinyada ah ee loo yaqaano gangs violence oo ka soo qabtay qaar ka mid ah wadamada caalamka kuwaasi oo ay ka mid yihiin Canada, Sweden, America, jasiiradda Bermuda iyo sidoo kale dalka Koonfurta Afrika. Jibriil ayaa waxaa la siiyay abaalmarino kala duwan kuwaasi oo uu ku helay dhaqdhaqaaq iyo dhex u xirashada u adeegista dadka dhibaataysan u dhaqdhaqaaqida nabadda iyo kaalmeynta dadka tirsanaya cadaalad darrida bartamihii sagaashameeyadii oo ahayd xilliyadii ay aadka u adkeyd in gudaha dalka lagu shaqeeyo ayuu mudane Jibriil Ibraahim Cabdulle oo waddanka ku soo guryo noqday oo kaalin hormuudnimo ka qaatay dadaaladii lagu joojinayay colaadihii sokeeye ee dadkeena kala geeyay mudane Jibriil Ibraahim Cabdulle waxa uu hormuud ka ahaa daminta iyo xal u helidda dagaal beeleedyo salka ku haya aanan qabiil khilaaf siyaasadeed iyo dagaallo u dhaxeeyay hogaamiye kooxeedyo hubaysan heshiisyada colaadahaasi laga gaaray ayaa waxa ay baajiyeen inuu daato dhiig Soomaaliyeed deegaanada colaadahaasi ay ka dhaceen oo uu mudane Jibriil Ibraahim Cabdulle xalkeeda hormuudka ka ahaa ayaa waxaa ka mid ah Mudug, Galguduud, Hiiraan, Baay, Bakool, Gado, Shabeellada Hoose, Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe, Shabeellada Dhexe iyo Muqdisho heshiisyada laga gaaray colaadaasi wali waa ay jiraan oo waa la ixtiraamaa heshiisyadaasi waxay intooda badan ay suuro geliyeen in deegaanadaasi ay ka dhismaan maamullo iyo dawlad goboleedyo xubno ka noqday dawladda federaalka ee Soomaaliya aqoonyahan siyaasi Jibriil Ibraahim Cabdulle oo hadda u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu in badan oo siyaasiyiin asaagiisa uga duwan yahay inuu leeyahay raad taariikheed oo ku filan inay si faahfaahsan oo la fahmi karo ay sawir uga bixiyaan qofka uu yahay iyo waxa uu u taagan yahay haddii aan in yar dib u raacno raadkaasna
waxa aan dul istaagaynaa meelaha waxqabadkiisii hore oo taabanaya meelaha soo socda. dib u heshiisiinta iyo nabadaynta waa mid ka mid ah haldoorada Soomaaliyeed ee ku caabaxay u shaqaynta bulshada. waxa uuna dadaaladiisii muddada dheeraa socday oo ku kasbaday khibrad iyo faham gun iyo baac dheer leh oo ku saabsan xalinta khilaafaadka, dawladiska iyo arrimo kale oo la xiriira horumarinta bulshada. isagoo wax ka aasaasay xarunta cilmi baarista iyo wada hadallada ee CRD isla markaasina noqday madaxii xarunta, ayuu Jibriil hormuud ka noqday in ka badan 40 munaasabadood oo la isugu keenay laguna heshiiyey beelo Soomaaliyeed oo colaadi ka dhaxaysay. waxaa kale oo ku guulaystay hirgelinta barnaamijyo cilmi baariseed oo lagu ururinayo xogaha iyo xaqiiqooyinka la xiriira duruufihi ay ku noolaayeen dadka Soomaaliyeed, kuwaasi oo ay ka faa'iideysteen dadka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka ee ku howlan xal u helidda arrimaha dalkeena. dadaalkiisu intaasi kuma ekayn, waxa uu sii gudbiyey masraxyada heer caalami isagoo gacan ka geystay fududeynta dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo indhaha caalamka loogu soo jiidayay kaalmaynta dadka iyo dalka Soomaaliyeed si looga guulgaaro isku dayadii ay dunidu riixaysay ee lagu raadinayay nabadda waarta oo Soomaaliya ka dhalata. ayaa waxaa mudane Jibriil Ibraahim Cabdulle wax ku daris hagar la'aan ahi uu ka geystay shirkii dib u heshiisiinta ee loo qabtay dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya. dawladihii ku meel gaarka ahaa ee dhismay wixii ka dambeeyay dagaaladii sokeeye waxaa baahi weyn ay u qabeen wax ku darsiga aqoon-yahanka Soomaaliyeed, maadaama dhammaan hay'adihii dawladeed ay dagaalada ku burbureen, soo noolayntooduna ay maskax iyo maal la isku geeyey ay u baahnayd. mudane Jibriil Ibraahim Cabdulle oo waajibkaasi damiiriga ahi gudanaya ayaa waxa uu isku xilqaamay taageeridda iyo taabagelinta dadaalada aan kala go'al lahayn oo ay natiijadoodu noqotay dhismaha maamullo ay ka mid ahaayeen Koonfur Galbeed, Jubbaland, Galmudug State. abaabulada iyo isku xirrada bulshada rayidka ah 30kii sano ee la soo dhaafay ururada bulshada rayidka ah waxa ay wadeen dhaqdhaqaaqyo baaxad weyn oo ay uga qayb qaadanayeen howlaha bulsho iyo siyaasadeed ee Soomaaliya. mudane Jibriil Ibraahim Cabdulle waxa uu ka mid ahaa hogaamiyaashii ugu magaca dheeraa ee loo tiiriyo kobaca iyo kaalinta gelinimo ee ururada bulshada rayidka ah. intii uu ka mid ahaa dhaqdhaqaaqayaasha bulshada waxa uu Jibriil fikir iyo ficilba ku bixiyay qorista iyo qaabeynta xeerarka iyo qorshayaal lagu hagayo howlihii ururada bulshada si looga badbaadiyo inay ku dhex wiiqmaan duruufihii lagu jiray. isla ujeedadaasi si loo gaaro ayuu mudanuhu isku howlay abaabulka shirar saxiixiyay oo la isugu keenay ururada bulshada ee gudaha dalka ka shaqeynayay iyo aqoon-yahankii qurbaha jiray, waxaana halkaasi ka abuurmay fursado si weyn looga faa'iideystay oo lagu dardargelinayay shaqooyinkii xilliga adag loo hayay bulshada. sumcadda dibadda iyo saaxiibada Soomaaliya sida laga filan karo hogaamiye madani ah oo muddo dheer u taagnaa ka shaqaynta danaha guud ee bulshada. waxa uu musharax Jibriil Ibraahim Cabdulle ka mid yahay dadka loogu tixgelinta badan yahay bulshada dhexdeeda iyo waliba masraxyada dibadda ee arrimaha siyaasadda Soomaaliya looga hadlo. waxa uu xiriir wada shaqayn iyo isqadarin ku dhisan uu leeyahay bulshada caalamka, gaar ahaan ururada heer caalami ee Soomaaliya qaybta ka tahay sida UN-ka, IGAD, AMISOM iyo EU. galaangalka iyo xiriirka wanaagsan ee uu la wadaago dhinacyada Soomaaliya la shaqeeya ayaa Jibriil waxa uu saashay in isagoo mas'uuliyad loo dooran haynin uu haddana markasta ka mid ahaado dadka loo doonto talooyinka iyo tusaaleynta wax lagu sahayo markasta oo ay xaaladdu cakiran tahay. isagoo ka faa'iideysanaya aqoonta diblomaasiyadeed ee uu leeyahay sida ay u shaqeeyaan saaxiibada dibadda ee Soomaaliya, waxaa musharax Jibriil Ibraahim Cabdulle uu ku talagelayaa inuu dalka ku hogaamiyo dhaba sahlaya in aan noqono dal leh waji furnaan diblomaasiyadeed oo danihiisa dibadda ku fushado, iyadoo laga fogaanayo gurdan raacnimo iyo isgadgadinta caadifadaysan. intaba musharax Jibriil Ibraahim Cabdulle marxaladda maanta waa hogaamiye isagoo aan xil dawladeed haynin, haddana muddo aad u dheer ku bixiyay u shaqaynta dadkiisa. waxaana uu ogaal fiican u leeyahay marxaladihii la soo maray, taasi oo ka caawisay inuu odoras sugan ku sameeyo mustaqbalka aan tiigsanayno. waatan musharax Jibriil Ibraahim Cabdulle ku dhiirigelisay inuu isu soo taago madaxtinimada dalka,
waxa uuna ku kalsoon yahay in aqoonta uu barashada ku kasbaday oo lagu kabay keedka khibradeed iyo kartida waxqabad ee uu leeyahay ay suuro gelin karaan inuu majaraha u qabto meel sanna u dhaqaajiyo hayaanka dowladnimo ee Soomaaliya oo hadda looga baqayo inuu hilinkii saxda ahaa ka leexdo maaha dareenka u adeegaya bulshada mid ku dhashay musharax Jibriil Ibraahim Cabdulle waqti dhow balse isagoo aan da'diisu gaarin 15 sano ayuu door weyn ka qaatay kaalmeynta dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu sida baan u saameeyeen waxaana uu garsoore kubadda cagta ah uu ka soo noqday xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Jibriil waxa uu sidoo kale yahay qoraa firfircoon oo maqaalo joogto ah ku qori jiray wargeysadii ka soo bixi jiray dalka itaalkiisa waxqabadka waxaa sii awoodsiinaya ammaanadiisa mabda'eed oo salka ku haysa iskaashi isku tanaasul iyo isku wad bulsho si loo abuuro jawi nabdoon oo damaanad qaadaya in Soomaaliya ay saani ugu socoto dhabaha dawladiska iyo horumarka bulsho maadaama kala aragti duwanaanta siyaasadeed iyo ismarwaaga siyaasiyiintu ay wiiqeen rajada iyo kalsoonida ay shacabku ku qabaan hirgelinta dawladnimo baahidooda daboosha ayaa waxaa musharax Jibriil Ibraahim Cabdulle oo tixraaca sooyaalkiisa waxqabad loo tixgeliyo ay dad badan u arkaan hogaamiye ku habboon marxaladda uu dalku marayo maanta waxa uu meelo badan ka sheegay oo barnaamij siyaasadeedkiisa qoran ku cad in isjiidka iyo ismaandhaafka daba dheeraaday ay yihiin xilkasnimo darro in laga gudbo loo baahan yahay taasi beddelkeedna waxaa Jibriil uu ku celinayaa inay mudnaanta koobaad ay isaga u leedahay dhisidda dawladdu u dhan yahay iyo soo dhaweynta iyo dhageysiga aragtiyada kala duwan ee horseedi kara in la helo Soomaaliya heshiisa Soomaaliya hagaagta musharax madaxweyne Jibriil Ibraahim Cabdulle waa hogaamiye aan ku haleyn karno himilooyinkeena mustaqbalka mudane xildhibaan dooro hoggaan aad tixraac hore u hayso si aad u hubiso tubta aan nagu hagi doonto waxay oran jireen